dooda ku saabsan Somaliland maaha oo kaliya muran siyaasadeed oo gobol balse waa tusaale cad oo muujinaya sida dal yar oo doonaya aqoonsi buuxda uu ugu dhex jiro tartan awood caalami ah. Somaliland waxay si buuxda u dhamaystirtay nidaamka dowladnimo ee madax bannaan tan iyo 1991 waxaana si joogto ah u muujisay xasiloonideeda doorashooyin iyo hay'ado shaqaynaya taasi oo ka dhigaysa mid ka duwan inta badan dalalka gobolka. Si kastaba ha ahaatee weli si toos ah uma helin aqoonsi caalami ah inkastoo ay buuxisay astaamihii lagu yaqaanay dowladnimo. Go'aanka Somaliland ee xiriirka diblomaasiyadeed ee kula yeelatay dalka Taiwan sanadkii 2020 waxa uu ahaa tallaabo geesinimo leh oo muujinaya sida ay uga go'an tahay inay la shaqayso dalalka la midka ah ee aan helin aqoonsi buuxda. Labada dhinac Somaliland iyo Taiwan waxay wadaagaan xaalad siyaasadeed oo isku mid ah inay jiraan oo ay shaqeeyaan balse aan si buuxda loo aqoonsan. Arrintanina waxay keentay cadaadis xooggan oo ka yimid dalka Shiinaha oo si adag u difaacaya siyaasaddiisa hal Shiinaha. Beijing waxay si degdeg ah u xoojisay xiriirka ay la leedahay dowladda Soomaaliya taasi oo si cad u taageerta sheegashada Muqdisho ah in Somaliland ay tahay qayb ka mid ah dhulkeeda. Laakiin aragtidani waxay iska indhatiraysaa xaqiiqda dhulka ka jirta. Somaliland waxay leedahay maamul gaar ah, amni gaar ah iyo nidaam siyaasadeed oo ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale. Taageerada Shiinaha ee Soomaaliya waxay u muuqataa mid si weyn ugu salaysan danaheeda istiraatiijiyadeed ee Beijing halka ay noqon lahayd faham dhabta ah ee ku saabsan xaqiiqda Somaliland. Tanina waxay Somaliland gelisay xaalad caalami ah oo adag halkaasi oo dadaalkeeda aqoonsi uu noqday mid lagu dhex daray tartan u dhexeeya quwadaha waaweyn ee dunida halkii laga eegi lahaa Somaliland sidii dal dhisaya mustaqbalkiisa. Waxayna mararka qaar loo arkaa kaliya gacan ka mid ah loolanka Shiinaha iyo Taiwan. Somaliland waxay sii wadaa wadadeeda waxaana muujinaysaa adkaysi siyaasadeed, xasiloonida gudaha iyo awoodda ay ku dhisayso xiriir diblomaasiyadeed oo caalami ah inkastoo cadaadis dibadeed jiro. Taasi waxay muujisay in arrintani Somaliland aysan ahayn mid la joojin karo balse ay tahay mid si tartiib ah u xoogaysanaysa. Xukuumadda Somaliland oo maanta soo saartay war-saxaafadeed ayaa hambalyo u dirtay madaxweynaha dalka Taiwan Lee Ching booqashadiisa rasmiga oo ku tagayo boqortooyada Eswatini oo dhacaysa 22 ilaa 26 Abriil 2026 taasi oo ah booqashadiisii ugu horeysay Afrika tan iyo markii xilka uu la wareegay. Dowladda Somaliland waxay soo dhaweysay booqashadan iyadoo u aragtana mid si togan uga qayb qaadanaysa xoojinta iskaashi caalami ah ee Afrika isla markaasina waxay dib u xaqiijisay in sida Taiwan uga go'an tahay sii xoojinta iyo adkeynta xiriirka dhow ee qiimaha leh ay la leedahay qaaradda Afrika. Somaliland waxay u baahan tahay in loo arko waxay dhab ahaan tahay mahan oo kaliya muran u dhexeeya Muqdisho iyo Hargeysa balse waa qaran doonaya aqoonsi sharci ah oo caalami ah. Faragelinta danaha Shiinaha iyo xiisadda Taiwan waxay kaliya sii adkeynayaan xaqiiqda ah inay Somaliland noqotay ciyaaryahan muhiim ah oo ku jira juqraafi siyaasadeed cusub oo geeska Afrika.